وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. وبلغ سورة المائدة آية الشناد أي نكبل علينا وعقودي لأوفني أوفوا بالعقود. عقودي لها وضمها لقلي كتابك الحديث سير رسولك وقاضي عليه الصلاة والسلام يا أحكامتي لقوها تبي بين مرين. آية أفرادوي يسألونك أبو الهي وعيكويدين يا نبي محمد ماذا أحل لهم وحي الله حلالي محانا الله حلالي بيك ويدين وما علمتم وما شينا ويكويدين يان علمتم أو أحبرتين وقاديس كان كورن بيك لين مكلب كاسو من الجوارح وحيابا لغو وقارد صداه سيدا ايجي وحي لميدا مكلبين إذن كو الدرية تعلمونهن إذن كو بري حيوانك مما علمكم الله وحي لها إذن بري إذن كو بري فكلوا عنا مما أمسكنا عليكم وحي إذن قبته وقال إذن قبتين بهلها أطيريسان العربيي عنا واذكروا اسم الله عليه مقع إلهي نكو حصى مركا ديريسان بسم الله واتقوا الله إلهي كعب صداه مرولبا حلاشي حرامته يسكاكي قسم إن الله سريع الحساب إلهي حسابتي سوي دك دك بدنت يسألونك وسؤالها كيمن أي أصحاب النبي رضوان الله عليهم waxaad halkaa ka arkaysaa yas'aluunaka marka la leeyahay waxay ku weydiinayaan su-aashu waxay ku imanaysay asxaabtu waxay ku qanceen nidaamkii hore la raaci jiray ee jaahiliga ahaa inuu isbedelay uu yimid nidaam islaam ah oo wixii horena duminaya mid cusub oo wanaagsanna oo qurux badanna oo ilaahay dadka u doorayna dhisaya wixii loo cadeeyay arrimaha mooyaane wixii kale waxay iska karaahaysan jireen inay ku socdaan sidii jaahiliyada markaasay su'aalaha badin jireen suuratul baqara hadda dib ugu noqoto intee oo meelood baad ku arkaysaa yasaluunak marka macnaheedu waxa weeye wixii hore garanna inuu xumaayo maxaa lagu bedelayaa bariga hore sidaas ay ahaan jirtay maxaa lagu bedelanaya waxay u fahmeen diintani inaanay u soo degin in la dhunkado oo la barakaystee laakiin ay tahay wixii lagu dhaqmi lahaa ee dhaqan iyo camal noqon lahaa saasay u fahmeen dabeetana waxay leeyihiin kaa maxaanu ka yeelaa mararka qaarkoodna cadhaday jaahiliyadii ka qabeen iyagaaba isqancin jiray oo odhan jiray war berigii jaahiliyadii ayayna waxaa samayn jirnay islaam baa ibay naga daaya wax waataynu qisadaa ku soo maraynay suuratulbaqara dhexdeeda laysa calaykum junaax قصدي كصاب صنايدان إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما تنبي كما يستقفك حجك قدنا يا معمر صفي مروة نحضر الطواف تنبي كما يستو ومحل لو يري وابا واجب به يجا مودين تنبي كا يستوحي لو المشي السلامية نور دقائق شنين قداية المهم وحين وجدنا إنسان لو فهم الدين دين التغيير دين وحصحي سوح بدليس إني هذا وحي هرانا كرتمدي هي كديت كي جاهلية رفيس سدته السنة وصبح رجعوا حين النبي قويدين يسألونك ماذا وحل لهم حانا وحلالة وحل الجورعه وحهيل بنوضة وحل عنه ما حلالة وعتل هذا قل أحل لكم الطيبات وحي طيب ولا بايدين حلالة طيب nafta wanaagsan ee dabeecadda fiican ku sugan ee diinta leh wixii ay wanaajisanayso way qofka fidradii iyo abuurka caadiga ku sugan ee silanaanin ee aan marmaroorin waxa uu wanaag u arkayo sharcigu wuxuu dayib u arkayo ee nafta wax taru leh ee caafimaadka wax taru leh jirka qofka wax taru leh mujtamaca u wanaagsan intaba wixii ku wanaagsan waxaad halkaa ka fahamtay haddii dayibkii la yidhi dayibkaa idin xalaala khabiidkuna inuu xaaraan yahay
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب كنا هو حلال وحي خبيث هنا وحرام وي mar hadduu intaa aynu sheegnayba dhibaato ku yahay waa qaacidada loo qaadanaya maxaa xalaala maxaa xaraama hadduu qofku hore u kala fahmi waayo qaacidadaas uu qaadanaya talow shaygani dayib miyuu yahay mise khabiith buu yahay de khabiith iyo dayibka uu yahay mar haddii uu u wanaagsan yahay diintii iyo caqligii iyo caafimaadkii iyo cuudkii iyo xoolihii iyo wada jirkii qoyska iyo ummadda kol hadduu intaaba wanaagsan waa dayib intaaba hadduu ku xun yahayna waa khabiith oo xaraam waxa kaloo su'aale ay ka timid wama callamtu min aljawaarih yas'aluunak sayda ma callamtum min aljawaarih wixii aad ku ugaadhsanayseen xayawaanka ahaa ee wax barteen bal ugaadhiisa ka warran bay leeyihin marka ma callam jawaarixdu waa jamcu jaarix jaarix jawaarix waa jamciisa waa shay jiraaxaduna dhaawacay ahayd ugaadha wax soo qabata ee ilkaha wax ku qabata ama cidiyaha ee dhaawacda wixii ay qabanayso ugaadha xayawaanka wax soo qabta ayaa jaarix la yiraahdaa ma callamtuna wuxuu sheegayaa waa kii wax la baray ee la tacliimiyay ee wax soo ugaadhayay ka ugaadhiisa ka war maxaa goor mu xalaal iyo goor mu si xaraam yahay ma callamtu min aljawaarih wixii wax la baray ee xayawaanka ugaadhiisa ka warran bay leeyihiin marka kaasna isagana dawaatan looga jawaabay dadka shuruudaha ku xidhan ayaa aayadda ilaahay uu ku sheegay si loo garto goorta uu xalaal yahay waxa ayga iyo wixii la mid ay soo qabteen ugaadhaha goortu xalaal noqonaya shuruudihiisa ilaahay ilaahay uu sheegay shuruudahaas waxa weeye mukallibiina tuallimuunahunna mimma callamakumullah fakuluu mimma amsakna calaykum wadkuruu isma allaahi calayh waa imisa afar sharti weeye afartaasi aayad sheegtay marka hore mukallibiina waa iyada qudhigeedu waa midal kalbi uno kalbiga dee yukallab waa la adeegsadaa mukallibiin idinkoo diraya ayaa lagu fasirayaa adeegsanaya marka waa in la diro horta waa shardiga koobaad ee isagu aanu istirin waa in la idhaa qabo ama baaskii lagu ugaadhsanaya ahaado ama aygii ha ahaado ama harimacadkii ama shabeel waxaad ugu dee xayawaan kastoo lagu ugaadhsada mid duula iyo mid ordaba waa in la diraayo isagu aanu istirin shuruudahay ka mid shardiga labaad waxa weeye tucallimuunahunna mimma callamakumullah wuxuu ilaahay idin baray aqoonaha aadamuhu yaqaano waa inuu wax ka yaqaano oo waa inuu yahay xayawaan mucallama mucallam ma callamtum iyo ma callamtu baabaynu ku soo marnay waxa wax la baray waa inuu yahay cilmi leh oo aqoontiisa waxa ka mid ah marka la yiraahdo dhaqaaq waa inuu dhaqaaqayo marka la yiraahdo ka joogso waa inuu ka joogsanayo dhankan u bayriyo sii soco iyo soo soco amarka inuu si wanaagsan u qaadanayo waxay culimadu leeyihiin fadliga cilmiga ka hadla cilmiga fadligiisii baabay tani wax weyn ka muujinaysa aayaddu oo aygii wax la baray iyo kii aan wax la barin ayaa midna wixii uu qabtay uu xalaal yahay midna wixii uu qabtay uu xaaraan yahay taasina waxay muujinaysaa fadliga cilmiga mar haddii xayawaankii cilmiga lahaa iyo xayawaankii aan cilmiga lahayn jaahilka ahaa labadaasi hadday sinmi waayeen bani aadam cilmi leh iyo bani aadam jaahilana hadalkiisa badah waa fadliga cilmiga aayaadka loo daliishado wey waxa halkaa laga fahmay oo kale xadiidka rasuulkuna cadeeyay sallallahu alayhi wasallam haddii kan aad dirtay iyo mid kale oo aan la tababarin oo shaqada aanad u diran ay wax wada qabtaan waa xaraam waa laga joogsanaya laana ma garanayno ka qabtay inuu kan yahay inuu kan yahay kol hadduu xabad jaahilihi kii aqoon-yahanka ha raacay ka joogsa wey jaahilkaasi wixiisi ku xaaraantinimo wey waa shardiga saddexaada ka soo baxaya halkaa mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakumullah wuxuu ilaahay idin baray shardiga afraadna waxa weeye fakuluu mima amsakna calaykum calaadaasi waa bimacna tacliiliya baa la ydhaha bimacna laam weeye fakuluu mima amsakna calaykum ay lakum idinka daraaddiin wixii ay u qabteen liajlikum adiga daraaddaa waa inuu kuu qabtaa oo isagu aanu qabsanin maxaa lagu kala garanayaa taa dee markii aad dirtay haba cararo
ha qabto laakiin hadduu cunay de isagaa qabsaday hadduu kugu simay uu bahalkii sii hayay uuna ilaa intaad soo gaadhaysayna dee aduu ku qabto labadaasa lagu kala garanaya xataa dhiigga hadduu raqo oo bahalkii oo kasii faa'iidaysanaya oo maman oo wax ka nuugaya oo dhiiggii cabayay aan cuninbe isaga laftiisa isagaa qabsaday bahalkan dhab markuu siiyo waa inuu kugu simaa waad soo gaadhaa waa saasuu rasuulkuna xadiid ku fasiray calayhi salaatu wasalaam shardiga shanaad waxa weeye wadkuru sma allaahi calayhi magaca ilaahayna ku xusa waa mindidii buu ka dhigan yahay xataa haddaanad birta la gaadhin ee neefkii ugaadhii uu kuu qabtay ay saa ku baktido isagaa birtiya birta marka neefka la saarayo dee maxaa lagu bilaabi jiray bisinka bismillaah marka waa inaad tidhaahdaa qabo bismillaah waa markaa birtii wax lagu gowracayay buu ka dhigan yahay ilaa waa jawaarixi waa halkii birtu ku jira wadkuru sma allaahi calayh idaa arsalta kalbaka almucallam wadakarta isma allaahi calayh markaad eygaaga dirto bisinkana aad qabato cun wixii uu kuu qabto adiga ee isagu aanu qabsanin wadkuru isma allaahi calayh saas weeye shantaa shardi baa laga maarmaanaa marka isagoo baktiya haddaad soo gaadho waad iska cunaysa wuu birsolay wattaqu llaha ina allaha sariicu lxisaab ilaahay ka cabsada mar walba xalaashiiyo xaaraanta ilaahay uu ka hadlaya ilaahay ka cabsada buu leeyahy inteebaa bani aadamku uu ku bariiqda halkan oo kale dad badan baa ku bariiqda xaraamta inay xaaraan ka dhigi kari waayaan xalaashana xalaal ka dhigi kari waayaan sidii ilaahay u jideeyayna u raaci kari waayaan oo barbariiqdaan leexleexdaan way badantay taqwo iyo iimaan iyo alla kacabsi baa keeni kara nidaamka samaawiga qofku inuu sidiisa u raaco in allaha sariicu lxisaab waxay tilmaamaysaa waa hanjabaad ilaahay ka soo fushay ilaahay xisaabtiisu way dhaqso badantay goortaad ilaahay hortegayso ku xisaabinaya waa dhowday kugu raagi maaya waxna ka gedman maayaana wixii aad calfato ee abaalkaagu noqdo waa lagaa abaalin xalaal iyo xaaraan xisaab baa ka dambayn doonta in allaha sariicu lxisaab waaya marka arrintaas aad bay xasaasi u tahay waa in la iska fiiriyaa qadiyadda gowraca qaladaad badanna dadku waa leeyihiinoo waxyaabo xalaalana xaraan bay u aaminaan waxyaabo laga yaabo in uu xalaal yahayna xaaraan bay u aaminaan maalan dadka waxyaabaha qaladka ay ka fahamsayeen waxaa ka mida gowraca dumarka oo kale qaarkood baa kaba shakiya oo yidhaahda dumarku ma dumar baa waxba gowraca qaar kalaa waxay ka shakiyaan ilmaha yar ee sabiga ah inaanu waxba gowraci karin qaar kalaa waxa ay ka shakiyaan qof ay u bixiyeen buuriye qab oo ay leeyihin hebel waa buuriye qab ama gowrac baa ka ansaxaya markay arrimuhu caynkaa yihiin qofka wax gowracaya shardiga uu leeyahay waxa weeye waa qof muslima oo wax kala garanaya intaasunbaa loo xidhaya qofku waa inuu qof muslima yahay waxna kala garanaya dariiqo sharciyana wax ku gowracaya waxa uu wax ku gowracayaana uu yahay wax gowrac ka suuroobi karo hataa waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam gabadh yaroo adhi jir ah ayaa neef gowracday dhagax bay kala jabisoo dhagaxan dhagax baruurka laydha cadcada afka fiiqan intay qac ku siisay bay neefkii isugu joogsatay wax kaga siisay waan saxay gowraceedu ina yarna waheed wuxuna bir mu hayn almuhim waa in qofku sidaa wanaagsan wuxuu gowracaa qof muslima wax kala garanayana uu yahay wax kala garanaya ilmo yarba ha ahaada weeye waa inaan qof waalanhayn alyawma maanta buu ilahay yidhi uxilla lakum dayibaat alla wixii wanaagsan baa laydin xalaaleeyey wadacaamu ladiina kuwii raashinkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey waa yuhuudda iyo nasaarada xillun lakum xalaal buu idin yahay dacaamkooda dacaamkaasoo uu ka mid yahay wixii ay gowracaan wadacaamukum xillun lahum raashinkiinnuna iyaga xalaal buu yahay iyo waxa gowracdaan waalmuxsanaatu min almu'minaat walmuxsanaat baa laydiin xalaaleeyey dumarka xorta ah ama cafiifaadkee dhowrsoon oo min almu'minaati kuwa ilaahay rumeeyey ka mid a walmuxsanaatu baa laydiin xalaaleeyey kuwa dhowrsoon oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba min qablikum kitaabka hortiin la siiyey waa yuhuudda iyo nasaarada gabadh kastoo ahlu kitaab ahoo markaa xor ah xalaal buu guurkeedu idiin yahay idaa aataytumuuhunna ujuurahunna dumarkaa marka siisaan meherkooda muxsiniina idinkoo guursanaya guurunbuu ilaahay ogolyahay hayra musaafixiin idinkoo ka sinaysanayn walaa mutakhidii akhdaan
aan samaysanaynin saaxiib hoosena sina muuqatana maya saaxiib hoosena wuu diiday ilaahay laakiin guur buu ogol yahay waman yakfur biliimaan iimaanka qofka diida iyo axkaamta la faray faqad xabita camaluhu camalkiisii wuu buray adduunyada waxba uma tirsanaa wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa guuldaraystu ka mid yahay alyawma uxilla lakum adayibaat waa aayaddu maalinkay soo degaysa erayga alyawma ilaahay uu soo celcelinaya waxay tilmaamaysaa nicmada ilaahay ummaddan u dhammaystiray maalmo adag baa soo marteen oo jiritaankiinaba aan la ogolayn maanta laakiin cagaha isku taagteen dowlad baa tihiin sharcigii ilaahay u dejiyay nidaamkoodii alla ka guddoontay loo dhammaystiray baynu soo arkayn waa waqti aan loo baahnaynba wax lagu daraba dayibaadkii aayaddu qaar ka mid ay soo sheegtay waxa wanaagsana dadka ilaahay u xalaaleeyay waxa wanaagsan inaanu cunidda iyo cabidoo qura ahayn shayga dayibka ahi ayaa nasku uu tilmaamaya laakiin intaa uu kaba sii caamsan yahayba dayibkani waxa weeye waa wixii xalaala uxilla lakum dayibaat waxa laydiin xalaaleeyay xalaashii sii wanaagsanayd ayaa laydiin xalaaleeyay qaar ka mid ah baa markaa ilaahay uu sheegay waxaa markaas ka mid ah waxyaabaha la xalaaleeyay kuwa ahlul kitaabka wixii ay gowraceen ahlul kitaabku maadaama ay ummad badan oo caalamka ku nool yihiin ummad badan oo dhaqdhaqaaqa adduunyada wax ka haya waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka agdhawaa iyo asxaabtaba si uun la isugu marnaayo dadka muslimiinta ay ka agdhawaayeen gowracooda waa la xalaaleeyay iyagoo qadarinaya dabcan qofka kitaab leh wax aanu qadarinaynin qofka aan bilaa kitaabka ah qofka aan kitaabkaba lahayn majuusiga dabcaabudka ah iyo ka mushriga iyo waxyaabaanay tixgelinayn buu qofkani dee tixgelinayaa bisinka ilaahay buu ku gowracayaa si uuna uu tixgelinayaa gowracii asalka ahaa wuxuunbuu markaa ka fulinaya saa darteed dacaamkani waxa weeyaan raashinkooduna waa idiin xalaal gowracooduna waa idiin xalaal wadacaamukum xillun lahum waxay sheegaysaa dee idinku wixii a gowracdaanna iyaga xalaal buu yahay taas waa taa markaa qofkani haddii uu ahlul kitaab yahay had walba ha joogee wixii uu gowracay waa la cunayaa hadduu kitaab leeyahay wey dadka qaarkood oo yuhuud iyo nasaaradaba abaan kitaabba lahaynba oo idhaahda annagu ilaahna waanu ka xorownay diinna waanu ka xorownay diin iyo arrimahaasi waa kuwii berigii hore ayaana lagu soo celin markaa qofku hadduu dee kitaab iyo diin uu tixgelinaya aanay jirin iyo gowrac iyo nidaamkii uu eegayo iyada in lagu xisaabtamo la iska ilaaliyo wey waay taas waa taa waxa kale oo iyagana guurkooda la inoo xalaaleeyo dayibaadka la xalaaleeyay ka mid ah almuxsanaatu min almu'minaati waalmuxsanaatu min aladiina uutul kitaaba min qablikum muxsanka halkan ku sheegani ruuxa mu'minada ee muxsanada iyo ta ahlul kitaabka ee muxsanada ah laba macnaba wuu leeyahay labadaba waa la isugu geyn karaa waa muxsan oo bimacna cafiifa gabadh dhowrsoon weeye ma muslimiinta ka mid ahaato ama ahlul kitaabka waa midaan sina lagu aqoonin iyo faaxisho oo dhowrsoon weeye taasaa ilaahay ogol yahay guurkeeda waxaa kaloo lagu fasirayaa muxsana waa dhowrsoonoo xor ah mu'minad xor ah ilaa addoontu cid walba xalaal uma ahayno xagga hore aynu ku soo marnay iyo tu ahlul kitaabahoo xor ah sidaa darteed haddii tan ahlul kitaabki aanay cafiifad ahayn oo doon noocii yaraanteediiba sinada la soo qabsata ay tahay waaba siday sameeyaan waqtigane oo idhaahdaan waxba ciyaal iskuulku ha iska sii wadwadaan waxooda ha iska walaaqdaan oo shaaqa midna qofkii noocaasi de haddii uu saa ku qaangaadho ku weynaado waa qayru muxsan shardiga lagama helayo midda kale qofkii ahlul kitaaba hadduu addoonna yahay dee laba nuqsaamood baa isugu darmay tan addoonnimada iyo tan kufriga iyo gaalnimada marka kaana la wadi kari maayo labadaa qayd baa loo xidhaya almuxsanaatu min almu'minaat waalmuxsanaatu min aladiina uutul kitaab waa dumar dhowrsoon oo aan xumaan lagu aqoonin isla markaana xor ah ahlu kitaabkii kitaabka la siiyay waa yuhuudiya nasaaradii marka meherkooda siisaan idinkoo guursanaya oo aan ka sinaysanayn muxsiniina mutazawijiin idinkoo guursanaya guur sharci ah hayra musaafixiin sifaaxu waa sinada walaa mutakhidii akhdaan ittikhaadku waa samaysashada
khidniguna waa saaxiibka idinkoon saaxiib hoose samaysanayn halkan waxa naska ilaahay uu ku muujinayaa waxaan la yidhaahdo kufriga iyo saaxiibka iyo sinada iyo waxaasaa islaasina oo adiga arkay in qofku mid qurana uu guursanayaa waa la ogolyahay intuu doonayana hala saaxiibo intuu doonayana ha ka sinaysto weligood buu cudurkaasi soo hayay ku gaala saa darteed buu ilaahay cudurka ah labada qaba iska ilaaliya ama cudurkaas iyo idinkana idin soo gaadhin sinada iyo saaxiibku idin soo gaadhin waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waman yakfur bilaxkaami wabilcuquudi wabilxalaali walxaraam inta midna nasku muu odhanina ilaahay wuxuu hi iimaanka qofka diida rumayntiibay ka mid tahay axkaamtana la raaco axkaamtanoo ilaahay laga guddoontaa waaba iimaankiiba iimaankii ha u qaadanin wax qofku uu qalbiga un ka biliif garaynaya ama ka aaminaya ama afka ka odhanayo oo aan lahayn camal axkaamtan ilaahay iyo sharcigan iyo xalaashan iyo xaraamtanoo sidooda loo fuliyo oo loo tixgeliya sidaa ilaahay u dhigay baa iimaankiya iimaanka tan ku kobco iimaanka jira waa iimaanka diinta tixgeliya sidaan u qaata iyadoo nidaamkan la diidana waa adduunya iyo aakhira la'aan nidaamkan samaawiga haddii la diido xalaashiisana la gudooman waayo xaraamtiisana laga tegi waayo waxa weeye faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin adduunkana camaluma jiro qofka ah diintii diiday aakhirana waa guuldaraysta axkaamtii baynu ku jirnaa iyo cuquuddii ilaahay addoomaha uu la galay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan ay isu taagtaan faqsiluu maydha wujuuhakum wajiyaashiina iyo wa aydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa suxullada maydha gacmaha wamsaxuu waxa aa masaxdaan biru'uusikum gacmihii madaxiinna madaxyaashiinna gacmaha ku masaxa wa arjulakum lugihiinnana maydha ilaalkacbayni ilaa kuraamaha ama qoobabka hoose wain kuntum junuban haddii jinaabo leedihiinna fadaharuu maydha wain kuntum mardaa haddaa xanuunsanaysaan bukaan tihiin aw calaa safar ama socdaal tihiin aw jaa'a axadun minkum ama mid idinka midii uu ka soo baxo min alqaa'id suuliga iyo xamaamka aw laamastumu nisaa ama dumarkii u galmootaan afartaa xaaladood hadday idinku yimaadaanoo falam tajiduu maa'an biyo aydaan helin ama biyihii isticmaali kari weydaan fatayamamuu waxa u jahaysataan oo u qasadaan weeye saciidan dayiban ciid wanaagsan oo nadiifa famsaxuu biwujuuhikum wejiyaashiinna ku masaxa ciiddaa wa aydiikum iyo gacmihiinna minhu ay bacda qayb ka mida ciiddaasoo khafiifa ku masaxa maa yuriidu allaahu ilaahay ma doonayo dad yahow markuu axkaamtan idiin jidaynayo liyajcala calaykum min xaraj inuu dushiinna yeelo wax culaysa kadeed ilaahay idinma saaraya markuu axkaamtan jidaynayo walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin nadiifiyo oo idin safeeyo wayutima nicmatahu calaykum nicmadiisa diintana uu idin dhammaystiro isagunbaa marti looga yahay lacallakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan qofka intaa helay waa inuu mahadnaqaaye waxa aayaddu ay ka warramaysa axkaamta dahaarada waayo qofka muslimka ah maaha qof nijaasa waa qof daahira jidhkiisuna waa daahir ruuxdiisuna waa daahir qalbigiisuna waa daahir qofku waa lamaane macnaheedu waxa weeye jasadkan iyo jidhkanoo qura ma aha laakiin waxa weheliyaa abuur labaadoo ama khalqi labaad oo ah ruuxda ayaa wehelisa sidaa ilaahayba uhi uma ansha'naahu khalqan aakhar markuu ilaahay abuurkii hore ee jidhka ka soo warramay jasadiga ahaa ayuu kii rawxaaniga ahaana ruuxiga ahaana ku xigsiiya wuxuu uhi uma intii jidhku dhammaaday kadib ansha'naahu khalqan aakhar abuur kale suuratlmu'minuun baad akhriyi karaysa qadafla marka waa laba abuuroo saa isu baal socda saa daraaddeed jidhkiisuna waa nadiif qalbigiisa iyo ruuxdiisuna waa nadiif markaasuu qof jiro oo dhammaystiran yahay haddii laakiin weligiiba saabuun kasta iyo udgoon kasta ha isticmaalay qalbiga iyo ruuxda uu ka wasakhaysan yahay waxa weeye ukhrujii ayatuha nafsu lkhabiifa waa naf khabiifa baa markaa lagu tilmaamaya
waaye saa darteed baa ilaahay uu leeyahay inna allaha yuxibbu tawaabiina wa yuxibbu almutatahhiriin labadaas isku lifaaqa ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa mutatahhiriinta ah inna allaha yuxibbu tawaabiin kuwa tawbadkeenka badan ee qalbigooda iyo ruuxdooda nadiifiya wa yuxibbu almutatahhiriin kuwa jirkooda nadiifiyo ilaahay uu jecel yahay macnaa labadiiba isku daray cibaadadu haddaba maadaama uu qofku xaaladda ugu wanaagsan buu qofku ku sugan yahay waa markuu ugu raaxo badan yahay ilaahay uu hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala kariimka ahaa xaaladdu markay caynkaa tahay waxaa lagama maarmaana in jidhkiisuna ka u wanaagsan uu ku sugan yahay jidhkiisuna waanu sida ugu wanaagsan ku sugan yahay lidaalik baa ilaahay uu tilmaamay waxaa la qaadanaya tahaarada qura inaanu ahaynin laakiin xataa dharka laftiisa dhar wanaagsan inuu noqdo nadiifa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid markaad boqor is hortaagaysa waa in dharkaagu wanaagsanaadaa oo jidhkaagu wanaagsanaadaa oo nadaafadaadu wanaagsanaata intaasba waa laga maarmaan waay marka halkan waa maydhigii iyo weysadii maxaa laga weysaystaa maxaase laga maydhaa way noo sheegaysaa aayadda waxyaabaha laga weysaysto iyo waxyaabaha laga maydho waxaa kaloo nasku uu tilmaamayaa saddexda arrimoodba in loo baahan yahay maydhiga weysada gabagabaysiga in qofku weysaysto wixii weysada ka jabinaya hadday ku yimaadaan inuu maydho haddii wixii maydhiga keenaya ay yimaadaan hadduu wixii uu ku maydhanaya iyo ku weysaysanaya oo dee biyiiyo waayana inuu gabagabaysto allaha alla wuxuu ka yun cibaadola'aan cibaadola'aan unbaan la ogolayn cibaadola'aani waxa weeye waa calankaa dhac iyo qofkiioo xidhiidhkiisii uu go-ay ilaahay uu la lahaa weysadu arkaan bay leedahay lixa halkan baa ilaahay uu ku sheegay lixdiiyo afarna si cad buu u sheegay oo sariixa labana waa laga fahmayaa arkaantaasi waxa weye midi waa niyada inuu qofkii dee camalkii niyoodo midi waxa weye inuu wejigii maydho ka saddexaadna gacmihii maydho ka afraadna madaxii inuu maydho ka shanaadna cagihii waa inuu maydho ka lixaadna waa inuu tartiibiyo oo sidaa ay u kala horeeyaan loo kala horraysiiyo dee adiga arkaya oo wejigii iyo gacmihii iyo madaxii iyo cagihiiba way sheegayn tii niyadiina waxaa laga fahmayaa idaa qumtum ila asalaati markaad salaada doontaan inaa u kacdaan maxaa meesha laga fahmaya haddaad tidhi waxbaan doonayaa dee wax aanad niyeynin miyaad u kacdaa haddaad iminka is leedahay halkan soo qaado ama halkan istaag ama albaabkan ka bax iraadaa ka horaysa iraada dooniduna waaba niyadaba haddaad iminka inaad dahaaro qaadatay isu taagtay macnaheedu waa inaad niyootay oo aad doontay haddaad salaad isu taagtay waa inaad niyootoo doontay idaa qumtum ila salaati arrinta kale laga fahmaya waxa weye tartiibinta wuxuu ilaahay tartiibiyaa xikmadiisuu leeyahy sidaa daraaddeed buu markuu xajiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam safa iyo marwuu kusii socdaa keebaa talow laga bilaabaya wuxuu idhi abda'u bimaa bada'a allaahu bihi riwaayada saxiixa waa mudaarice abda'u waxaan ka bilaabayaa kuu ilaahay ka bilaabay oo ah asafa ina asafa walmarwa sidaa daraaddeed midba midkaa uu ka horreeya ilaahay uu ku bilaabaybaa saasaa loo kala horraysiinaya wejiga gacmaha madaxa cagaha saasay u tartiibsanaanaya culimada qaarkoodna waxyaabo kale ku dardareen weysada laakiin in lixdana usii cadcad dadkii mu'miniintahaa baa ilaahay u yeedhay waayo tahaaradan iyo salaadan iyo axkaamtan intaba ilaahay waxa ka guddoomanaya qof iimaan leh qofkaan iimaanka lahayn dee ilaahay waxba ka dhagaysanba maayaba iimaan baa dira qofka iimaan kale bay salaadu dhadhan u samaysaayay la culus tahay oo xil saaranayt kii kale waa uu yuuraa uma dhaqaaqi karayo wainahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin qof khushuucsan oo iimaanla mooye kii kale wayba ku culus tahayba idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan marka doontaan inaa u kacdaan ayay culimmadu ku fasiraan waayo marka qofku uu isu taagayo salaadii waa maruu dahaaro qababa markuu isu taago xidhanayo waa maruu dahaaro qabo culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin sideedanba la iskaga daayo daahirkanoo ha noqoto marka salaada u kacdaan
goor walood salaada u kacdaba waa inaad weyse qabtaa ama weysadaas mid waajiba bay noqonaysaa ama sunnay noqonaysaa sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam weysada jidiidin jiray isaga oo dee mar walba inta badan uu laasimi jiray waa yaraydba intuu weyseqabku isku weyse qabi jiray wejiga maydha horeynu usoo sheegnay wejiga waxa weeyaan fooda laga bilaabo ilaa garhka labada dhegood inta ka dhaxaysa intaa wejigu weeye haddii qofku dee wejigiisu yaro dheeraado abuubidaar uu yahay intii timuhu ilaa intay timuhu ka go-een ayuunbaa waajiba intaa shishan hadduu iska sii masaxo dhib male laakiin qofka inta sideedaba sharci ahaan lagu andoonsada waa inta xubinkan uun ah weeye lidaalik bay culimmadu tilmaamaan haddii sunnayaasha ay soo galaan timihiisuna dadka caadigaa wejigoodu halka uu yahay unbuu ka soo bilaabaya qofka waxa lagu adoonsaday xubinkani inta uu yahay sharciguu sheegay wejigu waa kaas wey qasli waana maydhid taqsilu mar haddii qusli la sheego waa maydhid wey wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmahana ilaa suxullada maydha oo ilaa suxullada waxay ilahay u raacinayaan yad marka la yidhaahdo gacan kolka la yidhaahdo ayaa waxay tahay ilaa intaa cumacuma ee jalaqlaydaa hore ee jiricda sanbaa yad la yidhaahdaa waa gacanba intan kale waa suxulka iyo diraac baa la yidhaha afcaladagana marka in aanay intaa farxalka un ku koobnayn weysadu ilaa suxulka ay tahay baa ilaahay u raacinaya waayo haddii iminka ilal maraafiqi laga reebi lahaa inta la maydhi lahaa waa intaa laga farxashunbay noqon lahay macnahaasoo kale waxaa muujinaya aayadda aynu ku arki doonno suuraddan dhexdeeda assaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa ilal maraafiqi miyaa la yidhi iyaga ilal maraafiqi kuma jirto ilaa yadda uun marka gacanta inta la jaraa waa intaa hore laga farxalanayo waaya wamsaxuu biru'uusikum madaxana masixid iyo maydhi wuu kala duwan yahay markaa madaxii inaan la maydhayna isaga la masaxayo ayaa aayaddu tilmaantay wa arjulakum ila alkacbayn adimadana maxaynu nidhaahnaa masaxa mise maydha waxa kala saaraya xarakada ah wa arjulakum fatxada saarani ilaan shaygan la yidhaahdo naxwada iyo qofkii inuu garanayo xarakaadku macnaha ay keenaan adiyo jeer axkaamtiibay ayaaba ku salaysanba wa arjulikum iyo wa arjulakum wa arjulakum kol haddii la yidho aayaddu fadxisay waxa ay raacsan tahay qaybtii la maydhayay wa aydiyakum wa arjulakum waa qaybtii la maydhayay cagahana maydha ila alkacbayn ilaa kuraamaha ayaa la maydhaya intan kale ee maaragtay ka sarraysa dhudhunnada iyo iyada waajib maaha saa weeye arkaantii weysadu waa intaas in laga sii dheereeyo oo qofku uu sii korkordhiyo oo intaa waajibka uu ka sii kordhiyo iyaduna waa waaridoo way jirtaa wuxuu leeyahay xadiidka rasuulku sala allahu calayh wasalam tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu alwuduu quruxda la qurxinayo qofka mu'minka maalinta qiyaamaha waxa ay gaadhaysaa halka uu weysada gaadhsiiyo ayay gaadhaysaa abu hurayra xadiid buu warinayaa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahari alwuduu ummadayda waa loo yeedhayaa maalinta qiyaamaha iyagoo wejigu iftiimayo gacmuhu iftiimayaan caguhu intii uu ka weysaysan jiray iyada oo nuur uu sidaa uga boodayo oo nabiguna astaantaasu ku garanaya ummadiisa calayhi salaatu wasalaam abu hurayra markaa uu xagga dambe ka raaciyay faman istataaca an yudiila quratahu falyafcal haddaba qofka iftiinka kordhisan karow kordhiso oo ilaa jilibka iyo ilaa xagga gacanta iyo koryo usii oo dee iftiinka ha isku yaraynina kordhiso asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim maadaam xadaruu rasuula wacaasaruu tanziil hum acrafu bisunna iyagaa sunnaha aqoontiisa aad iyo aad u yaqaana oo waxigiioo soo degayay rasuulkii odhanaya ayay goobjoog u ahaayeen waxaynu taa uga jeednaa ama jawaabay u tahay culimada odhanaya intan unbaa lagu gaabinaya lagama kordhin karo qowlkoodaas sawaab maaha qowlka kale sawaabkahay waa ka aynu sheegnay waaya nafhamu sunna kamaa fahima salaf marka la leeyahay macnaheedu tafsiirkooda waa inuu tixgelintiisa leeyahay waxaa kolkaa kale oo naska ilaahay uu ku sheegay qofkii haddaba hadduu cudurdaar yeesho
mar walba diinteenu ruqso iyo casiima labadaasaa kala jira. casiimadu waa xukunkani siduu ku yimi, sidaa hadduu qofkii kari waayo ruqsad buu leeyahay, alruqsa lahu ruqsa. nabiguna uu ku tilmaamay inay tahay hadyad ilaahay ummadda uu siiyey ruqsadu, in ilaahay hadyadda laga aqbalana ay tahay. wain kuntum marda aw calaa safarin aw jaa axadun minkum min alqaa'id aw laamastum nnisaa, afartaa xaaladood baa ku yimi. mila qofkii waa bukaan, biyo waabu haystaa laakiin waanu isticmaali karayn oo wuu tijaabiyo way dhibaya, ama dhakhtarkii baa ku yidhi ha isticmaalin biyahan, maydhi ha u isticmaalin, waysana ha u isticmaalin. xaaladdu markay caynkaa noqoto bukaanna uu yahay, waa fatayamamuu saciidan dayiban, wuu iska gebagabaysanayaa. ilaan ilaahay baa wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman. ha isdilina, ilahay uu idin naxariisanaya, naftaada ha dilin. ama qofka indhaha ha loo qalo, ama dhaawaxa ku yaala jidhkiisa, ama finanbaha ka soo baxeen, dab ha ku dhaco, ha gubto, si kasta haata. ilaa maydka laftiisa hadday la maydhi karo waasna waa loo gebagabaynaya. isaga xilmo saarnee dadka soo hadhay buu xilku saaran yahay. marka haddii bukaan yimaado oo qofkii biyaa isticmaali kari waaya, ha gebagabaystabaa ilaahay. asxaabtii nabiga saxaabi ka mid ahaayoo jinaaba ay ku timo, madaxana nabar kaga yaalay, isagoo socdaal ku jiruu saaxiibadii weydiiya, wuxuuhi war ma la ii helayaa qowl ii bannaynaya inaan gebagabaysto oo aan biyaha iska daayo? maya bay yidhaha, kuuma hayno. waa kii biyihii intuu isku shubay madaxii ay ka galeena dhintay. markii nabiga loo sheegay waa kii lahaa way dileen, allaha dilee. inamaa shifaau lciy alaa sa'alu inamaa shifaau lciyi su'aal. xadiidku waa xasan. war way dileen, allaha dilee. ilaan jahligu dadku laayaa, jahligu qofkiisana wuu dilaa, dadka kalena wuu gaari waa dili karaa. oo kaaba jahli bay ku dileen buu. war maxay u su'aali waayeen? caafimaadka cudurka jahliga la yidhaa caafimaadkiisu waa su'aasha, ayuu ku sheegay rasuulku sal allahu calayhi wasalam. marka xanuunku waa kaas weeye. arrimo kale oo asxaabta ka soo aroornay de waa badan iyo adiladeeda. hadduu safar ku jiro, ama xamaamka ka soo baxo, ama xaaskiisii jimaaco oo biyo uu waayo, markaana fatayamamu saciidan dayiban weeye. safar maxaa loo yidhi? qofku hadduu nagi yahay miyaanu gebagabaysan karayn? sunnada rasuulkay ku sugantay calayhi salaatu wasalaam, hadduu qofku biyo waayo oo uu iska nagiyo oonu safarba ku jirin inuu gebagabaysan karo. oo hadda aayaddu maxay u sheegtay safarka? waxay culimmadu leeyihiin ay ku fasirayaan, safarku biyo la'aan buu qaali buu yahay. laba arrimood baa iska agdhowoo safar iyo biyo la'aan. oo safarku aana wuxuu u yahay biyo la'aan, saa darteed baa safar lagu qayday oo qaalibkiisa caynkaasa mooyaane, hadduu qofku biyo waayo uu iska nagiyaho oonu safarba ku jirin, qudheeda ruqsadii gebagabaysiga u haystaa. xamaamka haddaa ka soo baxdaan, adaabta wanaagsan buu qur-aanku ina barayaa in wax la sheego, lagana yara mastuurtoon afka lagu ballaadhinin. hadduu midkiin xamaamka ka soo baxo, meeshii godnayd hadduu ka soo baxo, qaa'idku waa meesha godan, aw jaa axadun minkum min alqaa'id, hadduu xamaam ka yimaado, xamaamku kusoo xaajo gutay, waysadii ay ka jabta wey, markaana uu biyo waayo ha iska gebagabaysta. aw laamastum nnisaa, culimmadu waxay ku fasirayaan intooda badani haddii xaaskii qofkii u galmoodo oo jinaaba ay ku timaado oo uu biyo waayo, fatayamamu saciidan dayiban, ciid nadiifa iska isticmaalo. marka saddexdan arrimood, marna biyihii waa la hayaa, qofkii waanu isticmaali karayn. saddexda kalena biyaanu hayninba. saddexda xaaladoode kalena biyaanu haynin. intaaba ruqsadaasi ilaahay bixiyey saciid dayiba inuu iska isticmaalo, oo qofkii uu qastiyo muddo dheerba ha ahaato. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy, ciiddu waa qofka mu'minka nadaafadiisa iyo shayga daahirinaya. 10 sannadoodba yuu biyo heline, maaha inay muddaduba kooban tahay. 10 sannadoodba hadduu waayo. marka saciidkaasi horaynu usoo xusnaa, in badanoo ka mida culimmada waxay ku fasirayaan inuu ciid yahay, qaarkoodna waxay ku fasirayaan wixii dhulka ka sarreeyaba waa lagu gebagabaysan karaa. sunnaduna labadaba waa sheegaysa, luqada carabiguna labadaba way sheegaysa. waxa aayadda ilaahay uu daba dhigay samaaxadda shareecadda isagoo muujinaya dabacsanaanteeda iyo macaankeeda, in addoonkii xil la saaray, laakiin xilkaasi uu yahay fii xuduudi daaqati, inta uu awoodi karayo. xil waa la saaray, oo xilkan waxa uu yahay mashqac lagu tijaabinayo addoonnimadiisa. cibaadadan iyo xilkan la saaray waa wax lagu eegayo bal inuu ilaahay ogol yahay qofkani, iyo inuu ilaahay ka fallaagoobay oo ilaahay diidan yahay. labadaasaa lagu kala eegaa. sideedaba cibaadadu waa imtixaankaa wey.
maaha inuu ilaahay addoomaha kadeedayo oo uu dhibayo oo waxaanay kari karayn uu ku addoonsanayo ma aha sidaa darteed baa ilaahay uhi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj man idinlama doonayo cidhiidhi walaakin yuriidu liyudahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun wuxuu idinla doonayaa dahaara wuxuu idinla doonayaa nicma oo ah diinta oo sideedaba diintu waa nicmo diin la-aantuna waxa weeye maxay waa niqma musiibo weeye diin la-aantu waa musiibo diintuna waa nicmo marka diintaa dahaaro leh diintaa nicmo leh saa darteed bay tahay in lagu mahadnaqo lacalakum tashkuruun oo qofka iskeedaba ilaahay uu waafajiyo diinta raacideeda nicmada siinta waxa wehelisa nicmada waafajinta saa daraaddeed bay leeyihiin culimmadu inna shukra yaxtaaju ilaa shukrin haddaad mahadnaqda mahadnaqa laftiisaaba usii baahan mahadnaq oo macnaheedu waxa weeye mahadnaqani waxa ilaahay uu ku waafajiyey nicmadii inaad ka mahadnaqdo mar labaad wuxuu ku waafajiyey mahadnaqiibuu ku waafajiyey waafajintaa laftigeeduna waxay usii baahan tahay iyaduna shukri kale marka shukriga ilaahay maba dhammaanaya waa musalsalkaa isdaba soconaya kuu ku waafajiyaaba shukri buu usii baahan yahay saasay ku soconaysa aayaddu maalan marka daabica ama muuqaalka uu leeyahay khilaafka madaahibtu waa shay daliil loo soo qaadan karo aayaddu fiq alkhilaaf ama fiq almuqaarin shayga loo yaqaano iyo culimmada iyo sida ay naska u fahmaan waxa ay noqon kartaa tusaale ayay aayaddu noqon kartaa iyadoo culimmada mid waliba siduu naska u fahmay u sharxayo iyadoo daliilada agtiisa ku sugmay uu tixgelinayo ama uu kala fanadayo mid agtiisa ku sugmaya mid kale iyadoo oo caalimkaasi uu ijtihaadayo ayaa midiba sida ay la noqoto ee aan hagrasho lahayn hawadiisa uu raacana aanay lahayn buu u fasirayaa markaasaa ilaa 10 meelood ayaa macruuf ku ah inay isku khilaafeen dadla marka hore saaynu soo sheegnay waxa isku khilaafeen idaa qumtum ila salaati salaad walba marka loo kacaaba loo weysaysanaya qaarkood baa laha qaarkoodna waxay leeyihiin ma salaad walba in loo weysaysto maahe dee taanad weyse qabin u bad u kici waana sida raajixa faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq ilaadaasay isku khilaafeen ilaadu ma tii qaayada ahayd baa mise waa tii macada macnaheedu waxa weeyaan maraafiqda suxullada waa la sheegay maydhiga miyay ku jiraan suxulladu talow mise dib baa looga soo dhigi karaa luqal carabiya kolka loo noqdo kutubta ka hadasha xuruufta iyo luqadooda labadaba way sheegayaan ilaadu inay macana noqon karto mararka qaarkoodna aanay meesha gaari karin oo dahabtu ila almadiina markaad maalan tidhaahdo magaalada agteedii unbaa laga fahmaya laakiin inaad dhex gashay lagama fahmayo xataa bay ka duwantay waaye wamsaxuu biru'uusikum madaxiina masaxa ma dhammaan madaxa la wada masaxaya mise qayb ka mid ahun dee aimada waataad garanayso 2 ayay noqdeen sidoo kale xagga naska marka la eego wuxuu u badan yahay in dhammaan madaxa la wada masaxayo la iskuma khilaafsana taa ee in la wada masaxa ma waajiba mise waa sunni qaarkood waa waajib bay leeyihiin qaarkoodna waa sunni in badh la masaxa unbaa xagga sunnada nebiga marka loo noqdana labaduba way soo arooreen inuu nebigu madaxa wada masaxay iyo inuu badh masaxay inkastoo markaa uu fooda masaxay cimaamadan uu raaciyey aduu qowlka raajixa waa in madaxa la wada masaxo waayo shaqooyinka madaxa laga qabto ayaa dhowra saynu marar hore soo tilmaanay mar waa la maydhaa mar waa la feedhaa mar waa la saliideeyaa mar waa la xiiraa mar waa la gaabiyaa dee intaa waa lagu wada sameeyaa dhan lama sameeyo oo qofku hadduu xiiranayo ama gaabinayo dee dhan ma sameeyo dhanxiir buu ilaa noqonayaa hadduu maydhayo badh ma maydho hadduu feedhayo badh ma feedha laakiin shaqooyinka madaxa waa lagu wada dhammaystiraa weysaduna waa la midu ilaa waa nooc tahaaraayabe waa marka caqli ahaan loo sii raaciyo taasi laakiin cilmi ahaanna qowlka raajixa waa in madaxa iqbaal iyo idbaarkii loo masaxo meelaha isku khilaafeen waxaa ka mid ah wa arjulakum ila alkacbayn wa arjulikum ayay akhriyayaan quraa'ada 7 qaarkood oo waabay hoos dhabayaanba marka hoos dhowgaasi muxuu noqon karaa sida jumhuurul mufassiriin ama muslimiintuba ay u badan yihiin waa in baabul mujaawara iyo baab la yiraahdo weeye marka taxliilkeedu wuxuu noqonayaa in maydhiga inay noqonayso lidalik baa qowl baa wuxuu qaatay hoos dhowgaas inuu biru'uusikum raaciyo sida madaxa loo masaxayo ayuunbaa loo masaxayaa cagahana maadaama la hoos dhabay oo isku xukun ay noqonayaan al-i'raab
wuxuu keenayaa in ay iska waafaqaan labada kelmadood xagga xukumka inay iska waafaqaan buu keenayaa labada kelmadood oo isku xaraka ah xukumka iyo icraabka way is waafaqi karaan baa maaragtay marka taa shiicada qaadatay laakiin waa qowl marjuux وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى هدي أبوكان تهين بوكانكو قفكو كوبا نايسان كراواكي جبيسي هو بوكان ودن بقاركود لي سيده ظاهريه ده لانه بوكان با قرانكو شيغي لكن سراجح waxa بوكانكي بيها وحيليا او على سفر كوا كي نوعه وسفر ودن بقاركود ku tageen laakiin sida raajixa waa in la yiraahdo waa wixii safarnimo loo tixgelin karo aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'id aw lamastum an-nisaa taabashadani waa jimaac bay ku fasireen qaarkoodna waxay ku fasireen taabashadii rag iyo dumarka jirkoodu istaabanayay waa sida madhabta shaaficigu ay ku tagtay laakiin waa laga rajaxsan yahay oo waa inay jimaac tahay falam tajidu ma'an hadii aydan biyo helin taas hal hiya hukman aw haqiiqa ma waxa weeye markuu biyaba sideedaba qofku waayo mise isagoo haysta biyihii haduu u baahan yahay miyay noqon kartaa waa inaanu helin talan xooliba cabaya ama waxa dadkii wax ku karsanaya ama dadkiiba haraadan oo cabaya marka hadii biyihii laba hayo de wuxuu la mid noqonaysa mar hadii loo baahan iyadoo la waayo oo kale ayaa la mid noqonaysa taana waa raacinayaan sida jumhuurtu ay qabaan qaarkoodna ma leeyahay leeyahay fatayammamu sa'iidan dayiban fatayammamu qasti hadaan u qastiin ka war iyada qudhigeeda waa khilaaf baa ka jira laakiin saciidan un baa maaragtay ka raajixa weey saciidan dayiban waa ciid iyo waa ma wax kasto dhulka dushiisa ah ayaa ay leeyihiin waxyaabaha khilaafka u si sabab waxa kamida minhuda erayga minhuda oo suuratu nisaa aan ku jirin laakiin halkan ku jira oo mar hadii minhu la sheegay waxay mesela waxa la famsahu bi wujuhikum wa aydikum gacmihiina iyo wajigiina ku masaxa maxay minhu ay ba'dahu ciida barkeed marka waa wax soo qaadmaya ayaa halkan laga fahmaya saciidku waa in wax ka soo go'ayaan marka waa ciid buu noqon karaa qoliyaan kalena waxay leeyihiin mintu de bacdiyana waa noqotaa ibtidaayana way noqotaa marka waa xaqiisa laakiin barkii ma waxyaabaha isku khilaafeen waxa kamida wajiga iyo gacmaha ayaa nasku uu sheegay waa ilaa intee ilal maraafiq iyaga lama raacinin halka weysada ilal maraafiq ilaahay uu raaciyay marka gacmihii waa ilaa halkeebay noqonayaan mar haddaan ilal maraafiq la oranin nusuus badan waxay u marxaati furaysa qowlka raajixayna uu yahay ilaa inta laga faraxasho ee gacan loo yaqaano ilaa inta saacada lagu xirayo ma laga masixi gabagabaysiga madhabka shaaficiga iyo madahib kale sida macruufka waa ilaa suxulada gabagabaysigu xagga naska marka laga labadaba waa la helaya laakiin qowlka raajixa waa inta hore weey ma markaliya mise waa laba jeer ayada waxa laga fahmayaa markaliya uninayt famsahu biwujuhikum wa aydikum min darbatayn ayaad ku arkaysaa kutubaha qaarkood mar wajiga loo soo qaadayay iyo mar labada gacmood loo soo qaadayay laakiin markaliya un baraajix marka waxaad arki kartaa ilaa tobaneeyo meelood in ayada aqwaasha culimadu ay ku jirto oo iyada qudhigeedu ay ka turjumayso baxthi dhan la iskamana oranayo mid waliba luqadiina dabeecadii luqada iyo dabeecadii naska ayaa keeni kara macnayaashan ballaaran وايه واذكروا حسبوا لهاي اسقوا مد الله الله نعمه الله عليكم نعمه الهي ودشينا ياراي وميثاقه بلنتي سين حس الذي بلنتا واثقكم به واذن كله هشيو اذن كقاده اذ قلتم مركي امدي هاي تراهدين سمعنا الهي يوم قال وحد نو شيغتو وادعنا كا غدومنا اقبلay واتقوا الله الهي كعبسده دديو إن الله عليم إلهي وحو أكسوني بذات الصدور لابها وحا كسوغان يا أيها الذين آمنوا ددك إلهي رميا شهادنا يا مؤمنين تاهو كونوا وحا نقطان قوامين لله كوا حقا كتوصن إلهي درادي وكتوصن قوامين كوا توصني بدن وحقا كتوصن وانقلق الله عليهين لله إلهي درادي وتوصن هذا شهداء بالقسط عدالتكم مرخات النوضة وجوري حق ترى مرخاتها كن قننا ولا يجرمنكم يؤذنكم كذادين يؤذنكم كلفين شنآن قوم قل عرض أو قبطان على ألا تعدلوا إن إذا عدالة سمانية يؤذنكم كلفين وعرضوا عدالة الآن يؤذنكم كين اعدلوا عدالة سمانية بولهين هو عدالة داس أقرب للتقوى يدا أيا لك عبس قولوا واتقوا الله إلهي كعبصدا إن الله خبير إلهي حقا قال بوي
bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaa. ummaddii baa ilaahay ula hadlaya isagoo toosinaya, ku abaabulaya axkaamta iyo aadaabta iyo waajibaadka uu soo faray siday u gudan lahaayeen. markaa ilaahay wuxuu uhi xusuusta oo ku mahadnaqa nicmadu ilaahay idin siiyey. nicmadaasina saynu marar badan soo tilmaanay, qur-aanku isu markhaati furaya, waa nicmada islaamka, waa nicmada diinta. wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana. nicmadiisa daraaddeed ayaa walaala ku noqotee. nicmadaa dibu xusuusta, colkii a ahaydeen iyo jahligii a ku jirteen, jaahiliyadii xumaanteedii, iimaankaa idiin bedelaya nicmadaa ku raaxaysanaysaan, ku mahadnaqabaa ilaahay. marka qofka islaam ilaahay uu siiyey ee diin uu siiyey, caqiido saxan uu siiyey, waxa weeye runtii inuu nicmadaa garto. oo asxaabtu saasay ahaanoo had iyo jeer tafaqudkooda waxyaabaha ay eegeegi jireen ayaa waxaa, iyo salafkuba saasay ahaan, gaalada eegeegi jireen markay cibaadaysanayaan iyo biro yariskooda marka ay tukanayaan iyo iyaga oo khushuucsan oo ordaya oo dadaalaya, oo haddana dee kufri wada kufri. axad asalaf baa waxa uu lahaa mid busaawi eegayoo wuxuu arkay kanoo dee kiristanka ahoo khushuucsan oo ooyaya oo gaajaysan oo soomaya. markaasaa wuxuu ihi caamilatun naasiba, war waanay camal falayaan, waanay daalayaan, waan ka xumahay. diin la-aanta ninkaa haysa ayuu ka naxaya. markaasaa wuxuu usoo daliishaday caamilatun naasiba, waanu tabcayaa, tacabkiisiina waxa weeye midaan waxba uga soo naasacadayn. marka nicmadaa qofku inuu ku laxa jeclaabo, wixii ka burinayana uu ka ilaaliyo weeye. wa miihaaqahu aladii waafaqakum bihi, ballantuu ilaahay idinka qaadayna xusuusta. asalkeedaba sidaa suuradda bilowgeeda aynu kusoo maraynay, awfuu bilcuquud, ballan baynu ilaahay la gallay, qur-aankaynu kula gallay, rasuulkaa inaga qaaday calayhi salaatu wasalaam. markaad islaam noqotay baad ballan gashay, aad ballan gashay ah samicnaa waadacnaa. islaamnimada macnaheedu waa maxay? waa samicnaa waadacnaa, ilaahay oo maqlay, waxyigii isoo gaadhay maqlay, qur-aankii baan maqlay, axaadiidii rasuulkaan maqlay, waanaan adeecay. taasi waaba miihaaqiiba. id waqti baa ballan gasheen, qultum samicnaa waadacnaa. ilaan ma lihin sidii reer banu israa'iil samicnaa wacasaynaa ma lihin, wanacuudu billaahi min dalik. taa ilahay waynu ka maangallay, ee waxaynu leenahay samicnaa waadacnaa. marka kaasaa miihaaqiya, ballantaasaad ilaahay la gashee. kol haddii aad islaam noqotae ballantaa fuliya, ballantaa ku adkaada, ballantaa ha ka bixina, ilaahay ha kaga bixina ballantaa. waxay culimmadu yidhahdaan aayaddu waxay ku soo degtay asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim baa sababtu ahayd, laakiin waa caamdee. oo waxay la galeen nebiga baycatu alula wathaniya, baycatu alcaqaba alula wathaaniya. heshiis markii ay iyadoo nebigu ku dhiban yahay maka, gaaladuna aad ay ugu kadeedeen, tolkiibaa ugu daraa oo jooga maka, reer maka ah, ayaa reer madiine ay ka soo xajeen madiina. rasuulkay ugu yimaadeen sala allahu calayhi wasalam maka. markaa 2 jeer bay ahayd, 2dii jeer bay heshiis adag la galeen. heshiiskaasaa kun dhigiisu wuxuu ahaa samicnaa wa adacnaa. waxallo waxaad noo sheegaysa waa kaa maqlaynaa, waana kaa aqbalaynaa. waxaanu ballankuugu qaadaynaa inaannu kaa difaaci doono wixii aanu ka difaacayno naftayada iyo ubadkayaga iyo ooryahayaga. raggii ballantaa qaadee waxaa ka mid ahaa sacd bnu rabiic ayaa ka mid ahaa ballantaa ragga. markuu sii dhimanayay ee uu shahiiday dagaalkii uxud, iyadoo naftu ka sii baxaysaa loo yimidoo markaasuu yihi war rasuulkii ma noolyahay? haa. ishiinnu inta ay bidhiqsantay haddii la idiin soo weydaarta buudhi oo wax la yeelo oo ballantii aynu gallay ah ka baxdaan, ilaahay agtiisa cudurdaar heli maysaana ogaada. isagoo sii dhimanaya. markaas taasaa ilaahay uu xusuusinaya, uu leeyahay ha ka bixina. ummadda islaamkana had walba waa u taallaa taas. wattaqu llah wattaqu llah wattaqu llah ayaa ilaahay ku soo celcelinaya. in allaha caliimun bidaati suduur. waxay sheegaysaa talo miyaad munaafiqadaynaysaa, talo qofku miyuu istusayaa, talo maxay ka tahay erayga uu leeyahay samicnaa maxay ka tahay? in allaha caliimun bidaati suduur. hadda ilaahay iska ego ummadaha kale, raadaarka ilaahay iyo riqaabadda iyo eegiddiisa, ishii ilaahay way ku haysaa. cid kale ha iska dhisi ee isaga iska dhis. aayaddan ku xigtaa waxay ku soo degtay asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim. dee dabcan lagdan bay kula jireen gaalada, oo maalin iyaga laga adkaanaya, maalinna gaaladay ka adkaanayeen.
marka haddaba maalinta ay adkaadaan ayaa nasku waxa uu farayaa in cadaaladda aanay ka tegin alcadaala xataa fi lxarb xataa maca alcaduw cadowga laftiisa inaad cadaaladii u ilaaliso cadowga laftiisa in aanad ka tegin wixii xaq uu leeyahay xadgudubka inaad iska ilaaliso kolkaasaa ilaahay markhaatigii iyo garsoorkii iyo xukunkii intaba wuxuu farayaa cadaaladda kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaaa bilqist qawaam waa dad toosan noqda oo xaqa ku toosan markhaati cadaaladana markhaati ku noqda walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu shana'aanku waa cadhada walaa yajrimanakum ijraamkuna waa xadgudub yuu idinku kalifin iyo dembi yuu idinku kalifin cadho aa qolo u qabteen inaydaan cadaalad samaynin way kala duwan tahay nacaybshiyaha aad qofka necab tahay iyo wuxuu xaqu leeyahay adigoo necab qofka gaalka ah qofka faasiqa ah qofka diinla-aanta ku sugan haddana taasi ma keenaysa inaad xaqiisa ka qaado ma keeni karto inaad xaqiisa siiso weeye garsoor wixii uu ku yeesho xuquuq wixii uu yeesho wakadalik fi lmuslimiin dadka muslimiinta laftigooda waa qaacido ay ku wada soconayaan icdiluu huwa aqrabu litaqwa dabcan maalan qofku marka uu garsoore yahay ama marka uu maamulo yahay ama marka uu ummad xukumayo ee uu madax u yahay dadkaasi ma wada raali gelinayaan qaar isagay la safan yihiin oo ay u jiibinayaan qaarna waxaa laga yaabaa inay ka hor jeedaan oo ay si uun isu seegan yihiin marka xuquuqda qofkaasi uu leeyahay iyo xorriyadaha uu leeyahay iyo maal wixii uu xaq u leeyahay iyo shaqo wixii uu xaq u leeyahay intaba in la siiyo wey oo cadhada aad u qabto iyo isa seegidda ay isa seegteen waa inaanay keenin wixii uu xuquuq qofkani waddanka ku lahaa ama uu dowladda ku lahaa ama uu adiga kugu lahaa inaanu ku waayin waa isa seegantii had iyo jeer waa mushkiladaha haysta caalamkan ay gaalada u bixiyeen caalamka saddexaad ayay u bixiyeenoo mucaaridkooda iyo maxaafidkooda maalan xuquuqda waddanka uma sinna mucaaridka hawadaa loo dirayaa mujarad maadaama uu isagu wixii nidaamku uu watay ka soo horjeedsaday xuquuqdii waddanka ku lahaa ama uu dee muwaadinnimo u lahaa iyo muslimnimoba u lahaa wuu waaya maadaama uu mucaarid noqday kan muxaafidka ahayna wuxuu qaadan karaa maadaama uu muxaafid noqday xaqaanu lahayn iyo wax siyaadaa laakiin nasku wuxuu ina barayaa walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu cadho aad qof u qabta ayay ku weysin tusaaluhu madaxtinimada qura maaha qoyskaaga quray noqon karta xaasaskaaga haddaad mid u cadhooto isa seegtaan midna aad jeceshahay taam yaraduun ha ku miisi sharkad baad maalan maamushaa qaarkood waa isa seegantihiin qaarkoodna dee waa iswaafaqsantihiin kan ha u burinin oo xuquuqdii ha u cirsiinin ay mowduuc meel kastaba waa geli karta ardaygii iyo macallinkii iyo ardaydii uu dee xukumayay ee u garsoorayay bay geli kartaa waa tusaale caama wey ee qolo qura kuma ee taa caamkaa waxaynu usoo qaadanaa way sii khatar badan tahay qofku haddii uu ku xisaabtamo cidda waafaqsan xuquuqda cid kale inuu siiyo kuwaana uu xuquuqdoodii ay waayaan waa ayaan darro jirta wey icdulu huwa aqrabu litaqwa wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun wacad allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadka mu'miniinta camalka fiican sameeyey lahum makfiratun inay leeyihiin dembidhaaf wa ajrun cadiim iyo abaalmarin weyn taasaan u yaboohaybaa ilahay ui qofka ilaahay sharcigiisa ka gudoontay waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wakadabuu biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaa'ika asxaabuuljaxiim naarta jaxiime la ydhahday la saaxiib inay ku waarayaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey udkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisii xusa id hama qowmun markay qola dooneen an yabsuduu ilaykum inay idiin soo fidiyaan aydiyahum gacmahooda inay gacan idin saaraan gaalada qaar ka midii maray dooneen fa kafa aydiyahum cankum gacmahoodaa ilaahay idinka qabto idinka joojiyey nicmadaa ku mahaddaqa badbaadadaa uu kufaarta idinka badbaadiyey wattaquu llaaha ilaahay ka cabsada wacala allaahi falyatawakal ilmu'minuun dadka mu'miniinta ilaahay ha tala saartay saasaa ilaahay isu dabadhigay oo cadaaladii iyo sharcigii iyo axkaamtii ayuu ka soo warramay marka qofka mu'minka ee camal saalixa sameeya ilaahay ka guddoonto sharcigaa dee ajir weyn baa ilaahay u yabaa kii kale ee kufriya iimaan la-aan ku dhaca ee ilaahayna ku gacan saydhee diinta ka guddooman waayana reero naareed dheh
aayadda ilaahay imtinaan buu ku xigsiiyo waxa ku mahadnaqdaa nicmada ilaahay nicmadaasi waa tee waa cadowga gacantiisa oo idinka hakiyey ay idhamma qawmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum gacanta inay idiin soo fidiyaan bay dooneen inay idinla dagaalamaan idin gacan saaraan gaalada qaar ka mid markaasuu gacmahoodii ilaahay qabta sharka kaafirkoo lagaa badbaadiye qudhigeeda ayaa nicmo weyna waanay habboon tahay sharkiisa sida looga muquuran lahaa hadday siyaasad tahay iyo hadday mudaaraad tahay gaal aad og tahay haddaad isku soo taagtay inuu dal iyo dadba baabi'inayo inaad is hortaagto ilaa inta uu ku jiraya xikmad maaha oo adiga arkaya dee dadkii muslimiinta maanta gardarro ayay ku soo doonanayaan haddana isagoo gardarradaa ku soconaya bal intii mararka qaarkood siyaasad la isticmaali karo si aanu dal iyo dadba dee awooddii dhismi lahayd aanay u dhicinin in mudaaraad la isticmaalo iyo siyaasad aad bay muhiim u tahay marka nicmada ilaahay uu ku tiriyey sharkooda ilaahay ummadda islaamka ka joojiyey waa maray dooneen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu fashiliyey waa maray dooneen asxaabta dhammaantood inay jidgooyn u galaanoo koox kooban ay gow ka dhigaan ayaa ilaahay uu u warramay nebiga sidii bay kaga badbaadeen badbaadadaasi nicmay ahayd nicmada ilaahay ugu mahadnaqa ilaahayna tala saarta wallahu aclam